Waxaa berito leh oo 28 Abriil maalin Isniin ah dalkan Canada loo dareeri doonaa doorasho qof iyo cod ah taas oo lagu dooran doono ra'iisul wasaaraha 5 sano ee soo socota dalkan xukumi lahaa. Waxay bilaabmi doontaa 7:15 subaxnimo iyadoona dhammaan doontaa 7:15 fiidnimo. Qof kasta oo berito leh shaqo leh waxa uu xaq u leeyahay 3 saacadood oo uu ku soo codeeyo. Ku darso 3 saacadood uu codeynta ku maqan yahay waxa loo xisaabin doonaa mushaharkiisa. Berito leh codeynta dadku 4 bay u qaybsami doonaan, 4 sanduuq baana loo kala codeyn doonaa. Sanduuqa koobaad waxaa iska leh dadka qaba baahiyaha gaarka ah, halka sanduuqa labaadna ay leeyihiin dadka wadaniyiinta ah ama dadkii ugu soo horreeyay ee dalkan Canada yimi. Sanduuqa saddexaad waxaa yeelan doona ardayda iyo dhalinyarada hadda kor u dhaaftay 18. Halka sanduuqa afraad ay yeelan doonaan dadka cusub ee maanta ay uga horeyso codeynta. Doorashada berito leh waxaa ku loolami doona 3 musharax balse 2 musharax ayaa ugu cadcad. Labada musharax baynu soo qaadan doonaa waayo musharaxa saddexaad waxa uu ku kooban yahay hal gobol oo kaliya. Labada musharax ayaa waxay kala yihiin Mark Carney oo ka tartamaya xisbiga Jamhuuriga ah iyo sidoo kale Pierre Poilievre oo sidoo kale isna ka tartamaya xisbiga Dimuqraadiga. Labada hogaamiye Mark Carney aan ku horeyne waxaa hogaamiyaha xisbiga loo dhiibay bishii 3aad 9keedii 2025 ayaa waxa uu noqday hogaamiyaha xisbiga. Sidoo kale Pierre Poilievre ayaa xisbiga taladiisa loo dhiibay bishii 9aad 10keedii 2022. Labadooduba waa ay ka dambeeyeen doorashadii hore ee 2019 dhacday. Musharaxiintii isu soo sharaxday midna kama mid aha labada tan musharax ee berito leh ku loolami doona doorashada tan. Ra'iisul wasaaraha waxaa dooran doona xildhibaanada ka soo baxa xisbigiisa. Canada gabi ahaanba xildhibaanadeedu waxa ay ka kooban yihiin 343 xildhibaan. Xisbigii raba inuu 5 sano ee soo socota dalkan Canada hogaamiyo ra'iisul wasaaruhuna ka soo dhex baxo waxaa la rabaa inuu ku guuleysto 172 cod halka 171 codna ay noqon doonaan xisbiyada kale. Haddaba berito la ugu dambaysa doorashada codeynta ku dhawaaqitaanka ra'iisul wasaaraha 5 sano ee soo socdana waxa ay qaadan doontaa muddo ilaa 5 maalmood ilaa 7 maalmood ugu badnaan ah. Waxaa laga yaabaa bisha 5aad 5teeda in la soo gabagabeeyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada. Waxaan ay ficil burkud dhigi halka ay gala socotaan waa degalada aan ku leeyahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube iyo TikTok. Waa ficil oo idin leh. Faafitaanka iyo faalladu wax la isfaro ma soo dhawaad.